maamulaha dugsiga hoose dhexe ee almaamuum maxamed ibraahim maxamuud oo ku magac dheer kawaakib بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha meesha iskugu yimid ay u horeeyaan gudoomiyaha waxbarashada degmada Balanballe mas'uuliyiinta waxbarashada kale sida macallimiinta iskuulada dugsiyada sare dhexe hooyooyinka waalidiinta meesha iskugu yimid ardada dadweynaha qaybihiisa kala duwan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore ilaahay ka cabsano dad islaam hadduu meel iskugu yimaado ilaahay laga cabsado oo la xasuusiyo waa shay waajib ah xadiis nabigu wuxuu ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shiit waxa weeye qofka waxa la yiraahdo ma garanaysaa wuxuu sameeyay garan waayo ilaahay waxa ka xisho aayad quraan waxa ay diyaa ayuha alladina aamanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimuun dadka Allah iyo rasuulku ilaahay ka cabsida mideeda dhabta ah ardaybaana hayo ubaxii wadankaana hayo ardaybaana hayo ubaxii wadankaana hayo waxaanu ordayaa dugsiyada waada
yimide allahayo i gargaar aamin aamin ilaahayo i gargaar aamin aamin dadalkii la yimide allahayo i gargaar aamin aamin ilaahayo i gargaar aamin aamin arday baana hayo iftinkii arooryaana hayo arday baana hayo iftinkii arooryaana hayo waxaanu ordayaa imtixaanu galaa waxaanu ordayaa imtixaanu galaa inaana biyo hoyo abalkoodii gude inaana biyo hoyo level ahaan inaad ka dallacdaan levelkan oo aad noqotaan arday secondary hiigsanaysa ama secondary u gudubta ardaydii hore idinka horreysayba sida aan u soo dhaweynay ayaa gacmo furan idinku soo dhawaynaynaa anigoo ah maamulka dugsiga sare Balanballe Secondary School. waxaa idin bannaan kalaasyadii fasalladii macallimiinta iyo kuraastii aad fadhiisan lahaydeen hadduu ilaahay idhaahdo waxaa idinka xigay inaad gashaan hal imtixaan oo imtixaanka aad uga gudbaysaan ah dugsiga hoose dhexe waa idin soo dhawaynayaa runtiina waxaan ku faraxsanayaa ardayda intan leeg oo 20 iyo dhowr ah inay ii yimaadaan welcome insha Allah waxaan idin ballan qaadayaa markaa waxbarashada aad hiigsanaysaan intan iyo inta ka dambaysaba in halka aad 4 sano ka kofar garaysaan leena aynu maalmaha ka mid ah sidan oo kale asla iskuulkaasaan inaga soo watino oo aan idin soo watino idinkoo jaamacada meel ka koraysa hiigsanaya dhammaan mar labaad waxaan u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladda waqtiga oo iska gaaban awgeed aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina waxa uu ahaa Firstly, I'm greeting you the best and the most precious greeting. And I want that peace of Allah be upon you. After greeting, I wanted to suggest here a topic about the finality of prophethood. So listen to me very well. Finality of prophethood in the light of Holy Quran. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Meaning of Holy Verse. Muhammad is not a father of any of you men, but he is a messenger of Allah, Allah's prophet. Meaning of word Al-Khatim, 1 to affect seal, 2 to come to an end, 3 to close, 4 to complete. Exclusive characteristics of his messengership. 1. Universality. Hazrat Muhammad, peace be upon him, is sent for all mankind, as in the Holy Book, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you but grace for all mankind. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Our prophet say, I am a messenger of Allah which is sent to all of you. Number 2, his religion is complete code of life. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Today I have perfected your religion for you and I have completed my blessing upon you and chosen Islam as deen for you. Number 3, his revelation is will be safe from destruction. إنا نحن نزلنا محمد اهتمام بالعلم الحمد لله خلق الإنسان من أدوات العلم ويسر
والبصر والعقل. قال تعالى والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا قال سلام كثير العلم فأول آية نزلت من القرآن تأمل القراءة التي هي المستقبل. بسم الله. halkan waxaan ka salaamayaa macallimiintayda hooyooyinka aabbayaasha waalidiinta ardayda iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladeena waxaanu ku bilaabayaa bulsho yahay babaasane aan idin beriijee sida salaam bilan gudoomo biladii astaahiyo looga dhigay bannaan oo marka xigta mishaar iyo dugsigeena baadiyo marka xigta mishaar iyo dugsigeeni baadiyo cilmi lagu bagaanshe laga dhigay bartiise horta barashadeenuba aqoon buuxda weeye cilmi lagu bartaa yidhi almaamuun birimari ma ku bayranaa dugsi baaxad weyno boqolaal barbaar iyo bulsho guul ku gaadho maradii wacnayd iyo degmadii balambal iyo bartamaha ku yaala maradii samaataba loo boqoolo weeyaan sahli wuu burburiyaa aqoontuu burburiyaa barmaduu ka reebaa hadal buuq ma reebe baradiyo oraahdiyo beedkayga raaco barta aad ku socotiyo himilada bogaaso bilatada garaadkee barayaal aqoon loo alla baawir saaro cilmi lagu baneeyo beerjilic dulqaad iyo naxariis burqanaysiyo bahalyow galgacayl iyo naxariis basaasto nafta ay basaasto xigmadii baxnaaniya murtibada casiiyo waxaad kaga fogaataa kaa baahi saaraa maxamed ibraahim iyo maamul buuxo weeyaan marka uu boqoolana qaasibkaa badkiisa iyo booskiisa biixiya barashada xisaabtana ismaaciil baa ku barayo kuu kala bilaaye suugaanta bilicdana laga helo barwaaqada suugaanta bilicdana galad baa bilaayo kuu kala marti kuu barxaaye diintaana bilicdana laga helo barwaaqada beerihii jannada iyo boqolaal waxoo kale waxaa ku barayo kuu kala bilaayo boqor burhaankeenii cilmi bulsho qarniyadii la beeso bil iyo baaqii keliya kaga bogo kawaakib sayniska baruurta iyo cudurrada wax beegsada lagu kala bidhaansheed kaga bogo ismaaciil